Cristiano Ronaldo oo wajahaya ganaax culus kadib xusul uu ku dhuftay xidig xulka Ireland u ciyaara. Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya ganaax kadib markii laga saaray kulankii Ireland markii ugu horeysay uu matalay xulka Portugal. Xilli Portugal 2-0 lagu garaacay, kaarka cas ayaa la siiyay Cristiano daqiiqadii 61 kadib markii VAR ay ka laabatay kaarkii jaalaha ahaa ee hore loo siiyay. Maadaama Ronaldo uu si ula kac ah xusul ugu dhuftay Dara Oshie sida ku cad xeerarka anshaxa FIFA, falal rabshad leh waxay keeni karaan ganaax 3 kulan ama ka badan. Ronaldo wuxuu saxiixi karaa kulanka xiga ee Portugal la ciyaari doonto Armenia, waxaana suuragal ah in ganaaxiisu uu sii socdo ilaa koobka adduunka 2026. Saameynta ugu weyn ayaa waxay noqon doontaa haddii Portugal ay ku guuleysto kulamada soo socda oo ay si toos ah ugu soo baxdo koobka adduunka. Ronaldo waxay u badan tahay inuu seegi doono labada kulan ee ugu horeeya koobka adduunka 2026. Haddii Portugal ay ku dhameysato kaalinta labaad oo ay ciyaarto kulamada bugbaxa, ganaaxa waxaa lagu qaadi doonaa kulamadaas, taas oo u ogolaanaysa inuu ka qayb galo bilowga tartanka. Go'aanka rasmiga ah ee muddada ganaaxa ayaa la shaacin doonaa kadib markii ay FIFA dib u eegis ku sameyso dhacdada. Tani waxay noqon kartaa musiibo weyn oo ku timaada Portugal haddii kabtankooda laga joojiyo bilowga tartanka. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.